7 xubnood waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweynaha. kulankii golaha baarlamaanka oo maanta lagu waday inuu hor yimaado madaxweynaha galmudug isla mar ahaantaasna baarlamaanku ay wax ka weydiiyaan waxyaabihii uga qabsamay safaradiisii iyo weliba ammaanka galmudug aysan filan baarlamaanka galmudug aysan u dhicin iyadoo xarunta golaha baarlamaanka uu soo xaadir waayay madaxweynaha waxaana muuqaalkii xarunta baarlamaanka galmudug lagu yaqaanay uu ahaa mid wax badan ka bedelan iyadoona la soo dhoobay xarunta baarlamaanka ciidamo aad u fara badan oo aan lagu aqoon xaruntaasi xildhibaanada galmudug oo in muddo ah ka warsugaya madaxweynaha ayaa saacadda markii ay soo gaartay xilliga ay ahayd inuu madaxweynuhu soo xaadiro isla mar ahaantaasna uu soo xaadir waayey ayaa baarlamaanku waxa ay ku laabteen kulan labaad iyadoona kulankaasi inta uu socday goobta ay soo gaareen saraakiil iyo weliba wasiirro ka tirsan maamulka galmudug kuwaasi oo doonayay inay la hadlaan baarlamaanka balse sida ay moodayeen ma aysan noqon waxaana ishortaagay isla mar ahaantaasna handadaad ka hor yimid ciidamadii ku sugnaa xarunta baarlamaanka intaasi kadib ayaa baarlamaanku waxay u codeeyeen cod aqlabiyad leh oo madaxweyne maxamed axmed caalin xilka looga dejiyey waxaana kulankii maanta xubnaha baarlamaanku ay xilka uga qaadeen madaxweynaha soo xaadiray 17 xubnood waxaana gudoomiyaha baarlamaanka oo shir gudoominaya kulankaasi maanta uu cod gacantaaga u qaaday xubnihii maanta waxaana u codeeyay in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee galmudug 17 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka waxaana kadib saxaafadda la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka isagoona sheegay in madaxweynuhu ku guuldareysay wax ka qabadka ammaanka iyo in baarlamaanka uu la xisaabtamo isagoona sidoo kale ku eedeeyay madaxweynaha in aan baarlamaanka la horkeenin xubno uu madaxweynuhu magacaabay inuu baarlamaanka hor yimaado siduu iskaga difaaco eedda loo soo jeediyey oo mooshinkan ku xusan waxay ahayd madaxweynuhu inuu yimaado oo ballantu ahayd 2 duhurnimo 1 bisha December madaxweynuhuna ma imaan sidaas awgeed baa waxay qaadeen golaha gacantaag 17 xubnood waxay u codeeyeen xilka qaadista madaxweynaha. waxaa diiday waxaa ka aamusay waxba sida uu qabo galmudug qodobkiisa 51 faqradiisa 3 oo lala akhriyo qodobka 52 ayaa madaxweyne ku-xigeenku la wareegayaa xilka si ku meel gaar ah inta sharciga qabo muddo bil ah kadibna la soo dooran doonaa madaxweyne cusub. Roble Maxamed Dirir, Home Cable TV, Galkacyo.